ولا هو maxay ummadan wada dhakada diiranay meesha fadhida ilaahay ma keenay soo cudure orintaas waa kaftan dhalinyarteeni waxaad wada baashin cuqdadka wada qaatay mid arkaysa muraayid isku eegayo kolbees ka cadhoonid moodeen $50 isku leeyahay isagu ama muraayid oo daarta u sameeyay mid baa intuu xaga jeel mariyay dhinacaana bixii ku rogay mid baa feeriyo yixyar xaga kaga taalood moodo xaga dama ugu carray baasha ilaahay ba bixiyo xanuun meedu ku haysa iyo garaac iyo dhimeedu ku haysa iska daa khaliha ala allah haska taala meesha taasi waa taa qodobka labaad ee sheegaya wuxuu yahay war xafladda waa la inoo qabtaa inuu iska nimaado ma ogtahay saliidaha iyo gariimada dhacay ugu badan timaha daadadiya ninka xafladda idin qaba qabiya sameeya oo hadana waad iska imanaysan umadiina wada waaweyn wada dhakada diiran meesha waad soo fadhiisanaysan Soomaalidu ma ogoleen wax loo sheego war cadaanku xataa xafladda lacagta lagu bixiyay intii gaadhay sawad garanaysan boqolkiiba 740 baa cadaanka dan yara miyay wax u qabto iyaga wax u siiyaan muxuu inaga wax nagu qabanay inuu jeed jirin wadadka ibni aadanka dadka muslimiinta ah waxa la dagaalamaa waa qalbigooda iyo maskaxdooda marka hore qalbigooda la dagaalamaa waa aqeedadooda oo ta diinteeni la fasahaadiya caruurteeni diinta ka wada baxayso ee qolba firqad sheegtay qolba meel ku diinta lafteedii khilaaf ku taagan yahay midna waa maskaxda oo qofku wuxuu i'tiqaadsan yahay wax iska qaban karayo ee uu diidi karayo wax yeeli karayo idinka Soomaalida markii maskax iyo qalb mid balidi ka waayay ayaa dhakadiin loo soo dhigtay diiranayd ee meesha taal oo dhakadiin laga talnay maanta bidaar leedin qabanay ilaahay baan ku dhaar shaadigu xaflad baa leedin qabanay maxaa loo qabanay meedaan waa maalinta bidaarta ma kullu ilaahay tameeyay ka soo saaray ma roob mid ku daasinay warano mid baan idin sheegay idinku aabayaashii Soomaalida marka halkaas wada fadhiisataan maxaad caruurtiinu malaynaysan iyo guriyini maxaa ku dambeeyay marka halka fadhidaan war Afrika talaal baa la keenaa dabargo ah oo caruurta lagu dabargoynayo guriyaha laga soo saaraya talaal yar baa la siinayo wasiirka caafimaadka ka saayo TV ka hadlaya ana dandamiya caadi caadi ku tahay farjir baa loogu talagalay farjir baa tahay dadii nabiyada lagu soo diriyay war inaga hadii cadaan haduu wax soo saaro ama cadaan uu dawad dalka keeno dhamaanteen sukuun waynu ku sukuun baan ku wada faraxsanay waa in cadaan ayaa inoo keenay laakiin Soomaaliya maanta dad falaashaha soo qaado lixis asxaabihiin u geeyo marka si shaahir taxliineen muuna sixriya maanta malaha shaahir nagu keen jirni mid waa bila hayl mid oranay waa bila sonkor yani ninka gaalka ahaa ee cadawga ahaa ee inaga cadawga inoo ahaa ee ilaahay diidana wuxuu keenay sukuuna wad ku faraxsantahay wax fiican weyn laakiin walaalka wuxuu ku soo warnaga Soomaalida wallahi hadii Soomaalida ninka mid $5 la siiyo oo lagu Soomaalida mar ilaahay bay naga hayee wallahi gambu inaga dhigaya wallahi yani midina la hareyn wallahi warnaga ilaahayna inooma xuma cadaanna inooma xuma ee inaga isku xun ninka cadaanka soo degay dawladda waxaan muxuu yahay dawladda lagu keenay caruurta la siinay dad wadan kasta caalam wuxuu leeyahay qolo taxliilisay dawooyinka oo fariisto oo dawladdu halka ka timid iyo waxay wadato inagu inta mid meegan tada ka xun badiga saan wax la sheegay ma guli Cabdisraado ka soo kacay iga qabo bidaarta leeyahay dhikar baa leeyahay xagga igu soo socdaa aan kugu soo gaaray war waxaan idinka tagaya wassalaamu calaykum hay